kulan wacan daawadayaal halkan warbaahinta hiiraan online kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa sheecin ciidamadooda lagu weeraray meel u dhow magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose war qoraal ah uu talisku ku daabacay bartooda X ayaa lagu sheegay in weerarka oo ahaa mid aan toos ahayn uu dhacay Khamiistii isla markaana uusan geysanin wax khasaare ah ma jiro wax dhaawac ah Mareykanka ah oo la soo sheegay ilaa iyo hadda lama soo sheegin wax khasaare ah oo soo gaaray saldhigga iyo hantida isbahaysiga ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay taliska Africom dhinaca kale warbaahinta ku hadasha afka Al-Shabaab ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay xalay howlgal ay ka fuliyeen garoonka diyaaradaha Kismaayo gaar ahaan qaybta ay degan yihiin ciidamada Mareykanka kooxda ayaa sidoo kale sheegtay in howlgalka uu ahaa mid aad u qorsheysan isla markaana uu dhacay sidii loo talagalay isla markaana uu jiro khasaare dhimasho dhaawac leh oo ka soo gaaray ciidamada saraakiisha Mareykanka ee ku sugan garoonka Kismaayo Al-Shabaab ayaa sidoo kale qoraalkeeda ku xustay in howlgalka lagu argudayay xasuuqii uu Mareykanku uu gadaal ka taagan yahay Israa'iil ay ku hayso shacabka Falastiiniyiinta si kastaba ha ahaatee saldhigan weerarka ay ka geysteen Al-Shabaab ee ku yaala duleedka Kismaayo ayaa ah mid laga hogaamiyo howlgallada duqeynta ah ee laga fuliyo deegaanada Jubbaland sida gaarka ah ugu sugan yihiin kooxda Al-Shabaab Mareykanka ayaa sheegay in howlgalkan uu sii socon doono ilaa iyo ciidanka Soomaaliyeed ay ka guuleysan doonaan Al-Shabaab ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay taliska Mareykanka ee Africom geesta kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 14 Oktoobar ayaa howlgal qorsheysanaa ka fuliyay saacadihii la soo dhaafay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ciidankan ayaa howlgallada ku beegsaday tuulooyinka kala ah Malable Siigaale iyo Buulo Arbundi oo ah dhammaantood deegaano hoostaga deegaanka Channel ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab howlgalladan ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha guutada 14 Oktoobar gaashaanle dhexe Cabdikariin Maxamed Muuye kaas oo warbaahinta dowladda u xaqiijiyay ciidamada ay cagta mariyeen maleeshiyaadka kooxdu u diyaarinaysay isla mar ahaantan ay doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka sidoo kale tan dhibaatooyin ay ku hayeen beerahooda iyo hantidooda ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose taliya Muuye ayaa sidoo kale sheegay in howlgallada noocan ah ay ciidamada dowladda sii wadayaan inta kooxda Al-Shabaab laga saarayo guud ahaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu ka mid yahay gobolada ay sida xoogga ugu sugan yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab waxaana halkaasi ciidamada xoogga dalka ay muddo dheer ah ka wadaan howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab dowladda Soomaaliya iyo boqortooyada Sacuudi Carabiga ayaa ku heshiiyay inay hormariyaan qaab dhismeed wadajir ah oo lagu maareynayo isla markaana lagu horumarinayo sirdoonka macmalka AI-da iyo tiknoolajiyadda hawada sare heshiiskan ayaa la gaaray intii lagu guda jiray shirweynaha caalamiga ee hay'adaha isgaarsiinta taasi oo ka dhacay magaalada Riyadh ee dalka Sacuudi Carabiga wadahadalladan waxaa si rasmi ah u hogaaminayay Mustafa Yaasiin Sheekh maareeyaha guud ee hay'adda isgaarsiinta qaranka Soomaaliya iyo sidoo kale taba guddiga isgaarsiinta hawada sare tiknoolajiyadda Sacuudiga ujeedooyinka iskaashigan labada dowladood ayaa saldhig u ah isla wadaagista khibradaha iyo aqoon ku saabsan maamulka tiknoolajiyadda casriga ah iswaafajinta nidaamyada sharciyeed ee lagu hago AI iyo tiknoolajiyadda hawada sare ee horumarinta kaabayaasha iyo la talinta la xiriirta maalgashiga tiknoolajiyadda mas'uuliyiinta labada dal waxay sheegeen in ay iskaashigan u noqon doono mid saldhig u ah kobaca mas'uuliyadda leh ee dhinacyada sirdoonka macmalka iyo hawada sare taas oo albaab u furaysa wada shaqeyn dhanka dijitaalka ah oo dheeraad ah mustaqbalka dhow iyo kan fogba geesta kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaaday tallaabo diblomaasiyadeed oo muhiim ah iyadoona si rasmi ah u magacawday safiir cusub oo u matala dalka Suuriya tallaabadan ayaa la sheegay inay qayb ka tahay dadaalada dowladda Soomaaliya ee lagu xoojinayo xiriirka walaaltinimo ee iskaashi ee kala dhexeeya dalalka Carabta gaar ahaan dowladda Syria oo hadda ka soo kabanaysa dagaal sokeeye safiirka cusub Abiib Muuse Faarax ayaa dhawaan warqadihiisa aqoonsiga u gudbiyay wasiirka arrimaha dibadda iyo muwaadiniinta Suuriya Asad Xasan Al-Shaybani isagoona lagu gudoomiyay magaalada Dimashq caasimadda Syria magacaabistan ayaa calaamad u ah bilaabashada waajibaadkiisa cusub ee ballanqaad rasmi ah oo ku wajahan xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal safiirka
kan ka horeeyay Daa'uud Maxamuud Muuse ayaa door muhiim ah ka qaatay dib u xoojinta xiriirka isaga oo hubiyay in Soomaaliya ay si joogto ah ugu muuqato caasimadda Suuriya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hormuud u ah dadaalada diblomaasiyadeed ee Soomaaliya, waxaana uu si cad u muujiyay taageeradiisa ku wajahan dadaalada Suuriya ee ugu jirto soo kabasho iyo xasillooni siyaasadeed. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bartiisa bulshada ugu hambalyeeyay hogaamiyaha Suuriya Axmed al-Sharaa, isagoona ku ammaanay dadaalada uu ku bixinayo horumarinta dalkiisa isla markaana kasoo kabanaya xaaladaha cusub. Guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa wararkii waad kala socoteen warbaahinta Hiiraan Online. Nabad iyo warsan.